السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله وين وحوليه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دور كاني رسول كسرميو دوشينا وحال إذنك فرض ياليصون سيدي لوغ فرض ياليكم إذنك هوريي وحادنا مدنتهين إن الدور سناتان سيداك اللوين وحوليه وبشي اللوين وسود جيج قرآن كان وحاو هنون يهي ددك وامدك كلا صار حق أيو بادلك روحي إذنك مدا أو حليل رمضان هصومو هذا ما يا سومايا culimadu waxay sheegaan ilaa iyo 3 qodob. Qodobka koowaad waa inuu yahay qof muslim ah. Qodobka labaad qof khangaaray. Qodobka saddexaad qof caaqil ah, yacni aan waalnayn. Soonka bisha la soomaya waxay ka mid tahay waxyaabuhu alla weyna farad yeelay. Soonkuna waa mid ka mid ah tiirarka islaamka. Haddaba sideen uga faa'iidaystaa Ramadaan? Kow, toobada. Dunuubadana uu bishaarayso Ramadaan baa yimid. Ka faa'iidayso alla weynana waa uu jecel yahay qofkii u toobad keenaa. walaalkaygiiyow ama walaasheediyay toobada badso bisha Ramadaan. runtii bishan ima jiro wax shaydaan la yiraahdo, kaliya waa alla iyo adiga oo kaliya. haddaba aan ka faa'iidaysano. tan labaad inaan ku shukrino, sababtoo ah Ramadaankii tagay dad naga khayr badan nala tukaday bishii Ramadaan baa naga tagay oo aan gacanteena ku aasnay. haddaba aan ku shukrino alla weyne. ugu dambeyn maxaad qorshaystay bisha Ramadaan? jawaab uma haysid sax. haddii aad wax qorshaysatayna waxaad qorshaysatay laaduu, kubadda cagta iyo inaad meelaha fadhiisato. haddaba aan mid kugula taliyo in aad xifdiso qur'aanka kariimka ama in aad dhammayso bishaas. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.